Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idil ahaantiinba. Kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadeenii taxanaha ahaa eed horeba uga daawan jirteen YouTube-ka iyo page-kaana ku leenahay Facebook-ka. Casharkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa waxyaalo muhiim ah, daawasho wacan oo wanaagsan. Casharkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa wax loo yaqaano reflexive pronoun. haddaba intaynaan ka hadlin waa maxay reflexive pronoun, macnihiisu waa maxay iyo sida loo isticmaalayo intaynaan ka hadal. Marka ugu horeysa waxaan soo guud maraynaa bal magacyaalada iyo siday isku bedelaan. Marka ugu horeysa magacyaalada ama waxa loo yaqaano pronoun waxaa loo isticmaalaa inay bedelaan halkii magaca. Haddaba haddii aynu soo qaadano magacyaaladu waxay ka kooban yihiin 9. waxaa jira oo muhiimadu ay tahay inaan ogaano 3 C oo ku jira magacyaalada. Ta ugu sareysa haddii aan soo qaato C ugu sareysa waxa ay ka hadlaysaa waa gabadh. marka la leeyahay C east ama C coast ama C land waxa laga hadlayaa waa gabadh weeye. haddii aan soo qaato labada C ugu hooseeya tasare waxay ka dhigan tahay they oo waxa u dhigan tahay they are. marka la leeyahay iyaga waa dad maqan oo rag iyo dumar baadi doona iskugu jira. marka they iyaga ay u taagan tahay. ficilkay qaadanaysana waxa weeye season iyo C coffin iyo C haven iyo C lanen saas oo kale ayay noqonaysaa. sida ugu hooseysana waxa loo isticmaalayaa respect. esta laakiin waa la weyneynaya. labada C sare esta waa iskaga mid, toose laakiin ugu hooseysa esta waa la weyneynaya. marka waxa u dhigan tahay waa you bay u dhigan tahay. marka saddexdaas C waa inaan qofku isku qaldin. labada ugu hooseeya oo midna ay tahay they oo iyaga ah, midna ay tahay you, isku ficil ay qaataan waa season iyo season laakiin qoraalka way ku kala duwan yihiin. ta ugu sareysaana waxay qaadanaysaa C east ama waxay noqonaysaa C coast, C land saas ayay noqonayaan. sidaynu ognahayba C-du isma bedesho. nominative-ka iyo accusative-ka waa iskaga mid. saddexda C-ba waa iskaga mid. haddaba waxaa kale oo inaad ogaato muhiim ay tahay labada C ee ugu hooseeya marka ay yihiin dative-ka way ku kala duwan yihiin. labaduba waa inen iyo inen laakiin labada inen tasare waxa laga dhigayaa ida ayaa la yareynayaa. marka ida la yareeyo waxay u dhigan tahay iyaga. haddii aad ida weyneysana waxay macnaheedu noqonayaa adiga. oo marka aad leedahay figedes inen adigoo doonaya inaad qorto figedes inen oo hoose u jeeda macnaheeduna u jeeda iska waran adigu figedes inen. haddii aad qorto tasare waxay noqonaysaa ka waran iyaga. marka macnuhu saas u leexanayaa oo isku bedelaya. marka muhiimadu waxay tahay sida ay yihiin inuu qofku u qaybo. haddii aan soo qaato accusative waxay noqonaysaa in, dative-kana waxay noqonaysaa in. intan hadduuna qofku uuna qaybsanayn uuna dusha ka haynin isticmaali garan maayo. qofku u jeedo iyo qofku ka hadlayo iyo kula hadlayo kala garan maayo. hadalkuna wuu iskaga qaldamayaa. marka la leeyahay accusative-ka waxay noqonaysaa in, dative-kana waxay noqonaysaa in. marka s accusative-ka s bay noqotaa laakiin dative-ka maxay noqonaysaa in. marka imtan iyo imta sare labadu way isku egyihiin laakiin hadhow tole isticmaalka iyo waxa loo jeedo bay hadhow baa lagu kala garanayaa. haddaba magacyaalada qofku inuu dusha ka xifdisan yahay siday isku bedelaan waa muhiim. accusative markaan leenahay waa fal lagu sameeye. dative markaan leenahayna waa fal lagu sameeye labaduba laakiin waxaa loo kala yaqaanaa direct object. direct object-gu waa accusative-ka ama waxa weeye fal lagu sameeyaa tooska ah. dative-kana waxaa loo yaqaanaa indirect object marka ingiriiska loo yaqaano indirect object oo had iyo jeer indirect object-gu waxa uu noqdaa dad. magacyaalka marka laga tago waxyaalaha kale laga sheekeynayo indirect object-gu waa dative waana dadka inta badan. accusative-kuna waa direct object oo wuxuu noqdaa ashyaada kale marka magacyaalada laga tago weeye. haddaba magacyaalka markaynu ka hadlayno accusative had iyo jeer receives the action of the verb
waxa uu si toos ah u receive gareeyaa ama uu helaa xarakada ficilkaasi uu sheegayo. haddii ficilku yahay ficil wax soo iibsi ama ficil jacayla markaan leeyahay ich liebe dich oo kale, dich waxay receive garanaysaa the action of the verb. ficilkan liebe oo jacaylka ah ayuu si toos ah u receive garanaya ama uu helaya. ich liebe dich, ich liebe ihn, waan jecelahay isaga. ich liebe sie, waan jecelahay iyada. marka saas oo kale ich liebe euch, waan idin jecelahay idinka oo kale saas oo kale. marka had iyo jeer accusative-ku waa direct object. direct marka la leeyahay si toos ah ayuu waxa uu receive garanaya ama uu helaya the action of the verb. marka had iyo jeer kuwani wax kale maaha, waa accusative, waana fal lagu sameeye, waa hadalku qofku waxa uu ku socdo ama shayga uu ku socdo ee tooska ugu socdo weeye. datifka haddii datifka u nimaadno, datifka had iyo jeer magacyaaladiisa iyo datifka kaleba waxaa lala isticmaalaa waxa loo yaqaano prepositional with dative oo had iyo jeer ah xidhiidhiyaal u gaar ah oo lala isticmaalo datifka, kuwaasoo ay ka mid yihiin su iyo mit iyo nach iyo for. way fara badan yihiin, 10 iyo kasii badan yihiin, meelahaas bay gaarayaan. marka xidhiidhiyaashaas oo dhan baa waxaa lala isticmaalaa datifka. waxaa kale oo jira iyagana feebab u gaar ah oo lala isticmaalo datifka, kuwaasoo loo yaqaano die 30 wichtigsten Dativverben oo aynu video hore kaga hadalnay. haddaba haddii aan soo qaato xidhiidhiyaasha, markaan leeyahay waan ku imanayaa adiga, ich komme zu dir, marka su waxay ka mid tahay xidhiidhiyaasha lala isticmaalo datifka oo keliya. markaan su idhaahdo ich komme zu dich qalad bay noqonaysaa, waxaan idhaahdo ich komme zu dir, waan ku imanayaa adiga, ama kommst du zu mir, ma ii imanaysaa aniga, sidaas oo kale. haddii aan matalan leeyahay waan la joogayaa isaga, waxa weeye ich bleibe mit ihm, ta ayaan isticmaalaya maadaama mit isticmaalay, waxaan isticmaalaya waa datifka ich bleibe mit ihm, ama ich bleibe mit ihr, waan la joogayaa iyada. marka saas oo kale had iyo jeer marka uu yimaado xidhiidhiyahaas oo ah kii lala isticmaalayo datifka, mar walba waxaad ogsoonanaysaa in lala isticmaalayo datif. waxaa kale oo jira feebab u gaar ah datifka oo had iyo jeer markay feebabka aad aragtidba aad isticmaali doontid datif. waxaa ka mid ah waa 30 iyo kasii badan, laakiin 30ka ugu muhiimsan waxaa la yidhahdaa die 30 wichtigsten Dativverben oo ah 30ka kelmadood ama ficil ee ugu muhiimsan ee lala isticmaalo markaasi datifka. 30kan kelmadood waxaa ka mid ah danken oo ah umahadnaqid, waxaa ka mid ah helfen oo caawintiya, waxaa ka mid ah folgen, waxaa ka mid ah glauben, waxaa ka mid ah befehlen oo ku amridiya, waxaa ka mid ah folgen waxa weeye la socoshadii, to follow, inaad qofka aad la socotid. waxaa ka mid ah applaudieren oo ah sacabatumid ama u sacbin, waxaa ka mid ah gratulieren, waxaa ka mid ah ficiladaasi marka ilaa 30 weeye. marka ficiladaas oo dhan waxaa lala isticmaali doonaa datifka. markaan leeyahay ich glaube dir, waan ku aaminsanahay adiga, glaubst du mir, aniga may aaminsan tahay. marka had iyo jeer ficilada waxaad arkaysaa in datif lala isticmaalayo. markaan leeyahay ich helfe dir, waan ku caawinayaa adiga, ama kannst du mir helfen, aniga may caawinaysaa. mar walba ficiladaas waxaa lala isticmaalaya waxa weeye datif. haddii aan leeyahay waan kuu mahadnaqayaa, ich danke dir, waxa weeye waan kuu mahadnaqayaa weeye. marka had iyo jeer ficilada aan idiin sheegay iyo kuwo kaleba sida funsha ay ka mid tahay, waxa weeye ficilo u gaar ah datifka, magacoodana waxaa la yidhahdaa Dativverben, waa ficilada datifka. haddaba intaa marka laga yimaado, maanta casharkeenu muhiimaddu maxay tahay ka hadlaynaa. muhiimaddu waxa weeye waxaa inagu soo biiray laba magacuyaal oo ma garanaysaa la yidhahdo hal magacuyaal weeye, laakiin wuxuu leeyahay accusative iyo datif. marka waxaa loo yaqaanaa reflexive pronomen, reflexive accusative pronomen iyo reflexive dative pronomen. haddaba reflexive muxuu yahay, macnihiisu waa maxay? kelmaddan reflexive waxay ka timid kelmad Ingiriisi ah
oo la yidhaahdo reflection, macnaheeduna uu yahay celin. Hadii jeer falaadhaha ilayska cadceedu hadday muraayad qabtaan, muraayada dib bay uga soo noqdaan. Ama haddii uu qof uu ku iftiimiyo muraayad iftiinku waxa uu soo noqonayaa dib. Marka magacyaalkani hadiyo jeer hadalkii wuxuu ku celinayaa qofkii yidhi, isla qofkii yidhi buu ku celinayaa hadalka. Marka kaas loogu bixiyay reflexive, macnaheeduna waxa weeye reflection oo ah celin. Hadii jeer qofku markay cadceedu kulushahay, cadceedu ay matalan falaadhaha ilaysku ay ku dhacaan muraayad, qofka indhihiisa waxa soo gaadha cadceeda falaadhaheedii baa ku soo noqda. Muraayada ayaa waxay soo celinaysaa reflection, dib bay u soo celinaysaa marka hadii jeer magacyaalkani hadalka wuxuu ku celinayaa qofkii yidhi. Waxaad arkaysaa ish iyo mish oo la wada isticmaalay. Marka qofka hadaan garan wuxuu oranayaa ish maadaama la isticmaalay, haddana mish maxaa loo isticmaalay. Marka ish mish aniga laftayda weeye. Marka hadalka qofkii buu ku noqonayaa, qofkii yidhi buu ku noqonayaa. Marka waxay leeyihiin reflexive accusative pronoun mish iyo mia. Dishna waa dish iyo diya bay noqonaysaa. RCS reflexive accusative-ka iyo reflexive dative-ka waa iskaga mid, inta waa iskaga mid, waa sish iyo sish saddexduba. Fear waxay noqonaysaa uns. Iyana waxay noqonaysaa oish. oo accusative-ka caadiga iyo dative-ka caadiga. Reflexive accusative-ka iyo reflexive dative-ka intaba waa iskaga mid, uns waa 4 jeer bay isku mid tahay. Oishna saasoo kale 4 jeer bay isku mid tahay. Marka muhiimaddu waxa weeye labada si ugu hooseeyana waa sish iyo sish, way isku wada egyihiin. RCS iyo labada si ugu hooseeya intuba waxa weeye sish. Marka qofku inuu xifdiyo way iska fududahay, laakiin hadhow sidee loo kala garanayaa macnu tahay. Waxa loo kala garanayaa waxa weeye hadhow toole waxa israaci doona nominative-ka magacyaalkan nominative-ka iyo kuwan hal laba ay isku raaci doonaan. Marka hore ayaa ku sheegaya. Haddii aan idhaahdo ish mish, waxaad garanaysaa ish mish. Marka aan ish mish idhaahdo, mish waxa ku garanaysaa ish. Haddaan sida ugu hooseysa isticmaalo sish, maadaama s weyn tahay waxaan garanayaa inay tahay tii u-da tilmaamaysay. Tan sare haddaan isticmaalo aan idhaahdo sish, waxaan fahmayaa inay tahay tii deyda u dhigantay ama iyaga u dhigantay. Marka kuwa hore nominative-ka ayaa mar walba waxay ku sheegayaan sishtan la isticmaalay tahay. Hadiyo jeerna hadalka waxa uu ku noqonayaa waxa weeye qofkii yidhi. Waynu arki doonaa bal sida uu hadalku qofku yidhi ugu noqonayo iyo macnahaanba waxa ay tahay. Marka casharkeena ayaan hore uga sii soconaynaa. Haddii aynu soo qaadano waxa loo yaqaano reflexive pronoun oo ah magacyaalka hadiyo jeer hadalka qofkii yidhi ku celinaya, amaba Ingiriiska loo yaqaano reflexive pronoun. Waxa kale maaha haddii aynu intaa Ingiriisi ku sharaxno, a situation is a reflexive. Xaaladdu waxay noqonaysaa xaalad reflexive meesha uu ka jiro when a subject and the object of the action are the same. Marka ay isku mid yihiin qofka hadalka yidhi iyo qofka hadalka lagu yidhi. Matalan subject waa nominative-kii. Marka nominative-ku iyo accusative-ku labaduba ay isku mid yihiin, markaas waxa la oranayaa reflexive pronoun baa la isticmaalay. Haddii nominative-ka iyo accusative-kiiba qofkii hadlayay iyo qofkii lala hadlayay ay hal qof yihiin, marka waxa la oranayaa waxa weeye reflexive pronoun. Waxa la isticmaalayaa waxa weeye reflexive pronoun. Zum Beispiel 1, ich wasche mich. Ich waxa weeye waa nominative, wasche waa ficilkii, mishna waa anigi. Marka mish maadaama accusative tahay, ishna ay nominative tahay, falaadho sida tilmaamayso waa isku hal qof. Maadaama oo ay isku hal qof yihiin, qofka hadlaya kala la hadlayaaba waa isku hal qof. Ich wasche mich, aniga ayaa maydhay ama anigu waan maydhanayaa. Marka qofka maydhanayana waa aniga, kala maydhayana qofku marka hal qof buu noqonayaa. Ich wasche mich. Marka sidaas ba macnaheedu yahay oo magacyaalkan yaala mish la yiraahdo oo ah reflexive accusative pronoun. Hadalka waxa uu ku celinayaa maxay qofkii yidhi.
sida ay falado ay tilmaamayso. marka saas loogu bixiyay maxay reflexive pronoun marka the subject and the object ama nominative iyo accusative of the action ee ficilkaasi are the same waa isku hal qof weey hal qof bay tilmaamayaan. marka muhiimadu waa intaas. haddii meeshaasi aanu ku jirin wax reflexive ah, a situation is not reflexive. xaaladu meeshaasi wax reflexive ah oo ka jira ma jiro when a subject and the object of the action are not the same. haddayna isku mid ahayn qofka hadalka yiri iyo qofka hadalka lagu yiri haddii ay kala duwan yihiin, meesha wax reflexive ah ama reflexive pronoun ah oo ku jira ma jiro. sida calaamada cas tilmaamayso kuma jiro wax reflexive pronoun ah. Ich fahre das Auto. anigu waxaan maydhayaa gaarigaas. marka gaari baan maydhayaa. marka meesha wax reflexive pronoun ah kuma jiro. qofku wuxuu maydhayaa laakiin wuxuu maydhayaa waa gaari. marka way kala duwan yihiin nominative iyo accusative waa laba shay oo kala duwan. maadaama laba shay kala duwan yihiin, meesha wax reflexive pronoun ah oo ku jira ma jiro. marka intaas intana sheegaysaa the subject and the object of the action are not the same. isku mid maaha objectigi waa nominative iyo accusative isku mid maaha. maadaama isku mid ahayn, meesha wax reflexive pronoun ah oo ku jira ma jirto. marka intaas baa inay fahanto ay tahay. markaynu isticmaalino haddaba accusative reflexive accusative-ka goormaan isticmaalina goormaan say isticmaalina reflexive dative pronoun ama dative-kiisa iyo accusative-ka see loo kala isticmaalaya. use the accusative reflexive pronoun when the reflexive object receives the action directly. sida hore u sheegnay, accusative-ku si directia ayuu waxa uu receive gareeyaa ama uu hela xarakada ficilka. marka waxa lagu leeyahay the accusative pronoun waxa la isticmaalaysaa when the reflexive object marka shayga objectiga ama accusative-ku receives uu helayo the action ficilkii uu helayo directly si toos ah. مثلا markaan leeyahay ich fahre mich si toos ay mich waxa weeye accusative waa reflexive accusative waxaan isticmaalay isla markaana uu wuxuu helayaa the action of the verb fahre. ich fahre mich aniga ayaa maydhanaya. marka saas ay tahay mich waxa weeye waa reflexive isla markaana waxa weeye reflexive accusative pronoun. waxaan isticmaalayaa oo kaliya marka uu accusative-ku uu receives uu helayo the action of the verb. ficilkan fahre si toos ayuu abaarayaa accusative-ka. fahre mich qofka la maydhaya fahre mich hadalkii anigu soo noqonaya marka anaa maydhanayo. I wash myself waxaan maydhayaa naftayda anaa maydhanaya. marka ficilkii mich ayaa waxay receive garaysay the action of the verb. marka sidaas inay fahanto ayaa muhiim ah. okay, tusaalaha labaad ich rasiere mich I shave myself anigu waan xiiranaya. marka mich waa accusative waxaana weeye reflexive accusative pronoun. isla markaana accusative-kan mich ee meesha yaala receives wuxuu receive garaynaya the action of the verb rasiere. ich rasiere mich I shave myself aniga ayaa xiiranaya. marka I shave waxaan u xiirayaa mich anaa isku xiiraya. marka garhka ama qofka markuu garhka xiiranayo oo kale ich rasiere mich. marka had iyo jeer hadalkii qofku uu yiri waa waxa si toos ugu noqonaya isla qofkii yiri. saas baa waxa loogu bixiyay reflexive pronoun. haddii aan hore ugu sii soconno, goorma ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo dative-ka haddaba. oo aniga hore u soo sheegnay waxaa jiraan reflexive accusative iyo reflexive dative. kuwa dative-ka ah goorma la isticmaalaya. use the dative reflexive pronoun isticmaal dative-ka
when the reflexive object. Marka dative-ku ama reflexive object waxaa loo jeedaa reflexive dative-ku marka uu receives uu helayo the action ficilkii uu helayo indirectly si dadban. oo dative-ku wax kale maaha, waxaa la yidhaahdaa falagu sameeyaha dadban baa la yidhahdaa, oo siduu u dadban yahay tusaalahan ku arkina. marka ich wasche mir mein Gesicht, waxaan maydhayaa anigu mein Gesicht wejigayga. marka mir ich wasche mich anigu waan maydhanayaa marka hore toos bay ahayd, laakiinse ich wasche mir waxaan anigu maydhayaa, aniga laftaydu ayaa maydhaya mein Gesicht wejigayga. marka wejigii baa noqonaya qayb kale. marka hadii jeer mein Gesicht wejigu wuxuu noqonayaa meeshii helaysay ama receive garaynaysay ficilka fashe, waa meeshii la maydhayay. miyana waxay meesha u taala waxa weeye reflexive way, waa dative indirectly. isla qofkii unbaa maydhanaya, qofkii ha maydho laakiinse meel jirkiisa ka mid ayuu maydhaya. marka qofkii baa laba qof u kala muuqanaya, haddana waa isku hal qof. marka miya waa indirectly, waa si dadban buu ficilku qofkii ugu soo noqonaya. marka saas ayaa loo jeedaa, anigu waxaan maydhanayaa wejigayga. marka isla qofkii unbaa maydhanaya laakiin wuxuu maydhayaa wejigii. marka mein Gesicht waa accusative caadiya. marka accusative had iyo jeer wuxuu receive gareeyaa the action of the verb directly. meesha la maydhayo ama maydhitaanku uu ku socdo abaarayo waxa weeye mein Gesicht. miyana waa reflexive dative, oo hadalka ayay ku celinaysaa qofkii yidhi. wejiga la maydhaya weji kale maaha, miyadaas waxay sheegaysaa inuu qofku isagu laftiisu uu wejigiisa maydhanayo. ich wasche mir mein Gesicht, waxaan maydhayaa wejigayga. marka la leeyahay indirectly ama dative haddaad maqasho iyo indirectly iyo indirect object waa isku mid weeye. si dadban buu had iyo jeer u helaa ficilkaasi waxa uu sheegayo baa waxa uu helaa si dadban. okay, tusaale 2 ama Beispiel 2. ich rasiere mir mein Gesicht, anigu waxaan xiirayaa wejigayga. meeshaan xiirayaa waa wejigayga, laakiin qofka xiiranaya waa isku hal qof. ich rasiere mir, waxaan aniga laftaydu xiirayaa mein Gesicht wejigayga. marka mir ficilku oo uu dhaafsiisan yahay oo wuxuu ku socdaa mein Gesicht meeshii la maydhayay. ama ich rasiere macnaha waxaan jeedaa ich rasiere waxaan xiirayaa mein Gesicht wejigayga. marka meesha la xiirayo ama xiiritaanku waxa uu ku socdaa wejiga. marka mein Gesicht waxa weeye accusative, isla markaana ficilkan xiiritaanku waxa uu si toos u habaaraya wejiga. miyadana waxa weeye reflexive dative, oo waxay sheegaysaa inuu hal qof uu isku xiirayo. marka miya waxay receive garaynaysaa ficilkan rasiere indirectly, si dadban buu ugu soo noqonaya. wejigaa la xiiraya laakiin qofka laftiisa ayuunbaa xiiranaya. marka ficilku sidaas ayuu dib ugu soo noqonaya qofkii si dadban. ich rasiere mir mein Gesicht, anigu waxaan xiirayaa wejigayga. marka had iyo jeer sidaas buu macnuhu u kala noqonaya markaad isticmaalaysid dative-ka, reflexive dative-ka iyo reflexive accusative. saasay macnaha kala noqonayaan. inta badan waxa uu reflexive pronoun-ku uu muhiim u yahay, oo had iyo jeer isticmaalku ku badan yahay kuwa loo isticmaalayo sich. kuwaas baa muhiima in qofku maaragtay uu kala fahmo. haddaba haddaynu hore ugu sii soconno, the reflexive ama ingiriisiga waxaa loo yaqaano the reflexive pronouns are mainly needed for the third person singular. this is why they are different there. macnaha waxa weeye waxaa loo isticmaalaa had iyo jeer reflexive pronoun-ka oo loo baahanayaa third personska, waa RCS. kuwaas ayaa badanka maaragtay ayaa loo isticmaalaa, waana sababta ay uga duwan yihiin markaynu arkaynay
magacyaalada way ka duwan yihiin run ahaantii oo waxa ay yihiin dhammaantoodba sish bay ku wada dhamaadaan. tusaalahan koowaad baan soo qaadanaynaa er ghaziert sish, isagu wuu xiiranayaa. markaa sishtan inay tii erta tahay waxaa kuu sheegaysa erba xagga hore taala, markaa saasay iskugu laba kastaaba ay u wada soconayaan. er ghaziert sish isagu wuu xiiranayaa. haddaba haddii aad tiraahdid bal ka waran er ghaziert ihn ood accusative-kii caadigeeda soo qaadatid, tani waxa weeyaan labaduba waa accusative, laakiin tani waxa weeye reflexive accusative. ta sare waa reflexive accusative, tana waa accusative-kii caadiga ahaa. oo tiraahdid er ghaziert ihn, isagu wuxuu u xiirayaa isaga weeye. markaa qof baa qof kale u xiiraya. markaa ta hoose maaha reflexive accusative pronomen ee waxa weeye ta hoose accusative caadi weeye. ta sarena waxa weeye reflexive accusative pronomen. oo sish hadalka waxay ku celinaysaa qofkii yidhi er bay ku celinaysaa. er ghaziert sish isagu wuu xiiranaya, isagaas ku xiiraya. marka ka hoosena qof kale ayuu u xiiraya. marka labadan accusative saasay ku kala duwan. waa accusative caadi ka hoose, ka sarena waxa weeye reflexive accusative. maadaama reflexive yahay, ujeedadiisu waa inuu hadalka ku celiyo qofka yidhi. marka intaasay ku kala duwan yihiin. okay, bal kuwana eeg marka. number 3, sie kauft sich ein Buch. markaynu leenahay sie kauft sich ein Buch, sich ma waxa weeye reflexive accusative mise waxa weeyaan reflexive dative? waxa weeye reflexive dative weeye. sababtay dative ku tahayna waxa weeye sie kauft sich iyadu waxay soo iibsatay ein Buch, hal buug. markaa iyada buugga isku soo iibisay, iyadu waxay soo iibsatay buug. sie kauft sich ein Buch, buug bay soo iibisay. ein Buch waa accusative caadiya. buugga laakiin yaa usoo iibisay, iyada isku soo iibisay. markaa sich waxay helaysaa the action of the verb indirectly. qofka buugga usoo iibisay waa isla iyada usoo iibisay. markaa ficilku si dadban bay u helaysaa. ficilkan kauft sich waxay receive garanaysaa indirectly. marka hadii jeer saasay ku kala duwan yihiin. oo mar walba dee inuu kan yahay reflexive dative waxa ku sheegaya accusative waxa xagga dambe imanaya. marka accusative waxa xagga dambe yimaado ein Buch oo kale ama mein Gesicht oo kale ay gadaal timaado ama xagga dambe timaado, mar walba sichtaas waxay ku sheegaysaa inay tahay markaasi dative, sidii aan tusaalaha hore ku arkaynay. accusative-ka caadiga reflexive accusative-ka markaan ka hadlaynay, reflexive accusative-ka isagu wuxuu receive garaynayay si toos ah the action of the verb. markaan lahaa matalan ich fashe mich iyo ich ghaziere mich, isagu wuxuu accusative kaloo kasii dambeeya isaga ma jirin. marka inahaas bay ku kala duwan. number 4, sie kauft ihr ein Buch. haddii la yidhaha balka waran sie kauft ihr ein Buch, iyadu waxay iyada usoo iibisay buug. sie kauft ihr. markaa waa laba qof. kani waxa weeye waa dative caadiya, kasar laakiin waxa weeye reflexive dative. oo reflexive dative-ku ujeedadiisu waxa weeye inuu hadalka ku celiyo qofka yidhi. laakiin dative-ka caadiga ah haddii la isticmaalo qof kale buu noqonayaa. sie kauft waxay usoo iibisay iyada ein Buch, buug bay usoo iibisay. sie kauft ihr ein Buch. marka iyadu waxay iyada usoo iibisay buug. marka waa inan kale buug usoo iibisay. laakiin ta sare sie kauft sich ein Buch, iyada isku soo iibisay buugga. marka labadan dative labadu waa dative, laakiin midna waa reflexive dative, midna waa dative caadi. hadduu dative caadi yahay qof kale noqonaya. ila nominative-kii na waa si waa gabadh, dative-kiina waa gabadh. marka waa laba dumar ay noqonaya ama laba
laba qof oo dumar ah. Okay, sie kauft sich laakiin waa isku hal qof. Sich sidaasi la socota, sie kauft sich ein Buch. Markaasaas inahaasi ku kala duwan yihiin. In order to emphasize that someone has done something themselves in German, you use selbst. Haddaba haddii aad wax ta'kiidinayso, in order to emphasize, haddii aad rabtid inaad ta'kiidisid that someone has done something themselves, inuu markuu qofku isagu wax isku qabto ama isagu laftiisu maartay ama iyagu laftoodu ay wax isku qabtaan in German ahaan markaad doonayso inaad isticmaasho, you use selbst. Matalan aniga wax qabsaday, selbst baan aniga ayuunba wax isku qabtay, ama anigunba wax bartay oo barashadii anigunba bartay, ama maanta aniga shaqaystay oo shaqadan baan naftayda u qabtay. Selbst baa isticmaalaysa marka waxba ta'kiidinaysa. Marka selbst noqon mayso reflexive pronoun ee waxa weeye markaad doonayso inaad wax ta'kiidisid. Okay, number 1, kan selbst machen. Isaga laftiisa ayaa samaysan kara. Kan selbst machen. Isaga laftiisa ayaa samaysan kara. Macnaha isaga ayaa qabsan kara hawshaas. Kan selbst machen. Isaga samaysan kara weey. Shaqada iyo waxa uu qabsanayo waa inuu soo qabsado. Kan selbst machen. Okay, number 2. Sie muss das selbst lernen. Iyada lafteedu waa inay barataa. Waa inay cid kala barin, iyadu waa inay isbarto. Marka hawsha waxbarashadu iyada u taala. Sie muss das selbst lernen. Marka selbst kelmadda aad arkaysa selbst mar walba waxay sheegaysaa ta'kiidin inuu qofku hawshaas isaga uu qabsanayo. waa inaga xagga sare ku sheegnay in order to emphasize saying u ta'kiidino that someone has done something themselves. Shayga uu qofku qabanayo themselves iyaga nafahooda ayuunba waxaa isku qabtay. Marka in German ahaan markaad doonayso inaad tiraahdo you use selbst baad isticmaalaysaa. Ich kann es selbst machen. Aniga ayaa samaysan kara waxaa. Tawsara soo kala dan ich geliyo ich kann es selbst machen. Aniga ayaa samaysan kara hawshaas. Ich kann es selbst machen. Number 2, sie muss das selbst lernen. Waa inay iyadu barataa. Markaas hawsha waxbarashada iyo barashaduba iyada u taala. Nummer 3, ich kann mich selbst waschen. Ich kann mich selbst waschen. Aniga laftayda ayaa maydhan kara. Okay, marka halkan waxaa ku jira reflexive accusative oo mich ah iyo selbst oo sheegaysa macnaha ta'kiidin in anigu hawshaasi aan qabsan karo. Marka labadiiba meesha ku kulmay. Ich kann mich selbst waschen. Aniga laftayda ayaa maydhan kara oo hawsha qabsan kara. Okay, haddii aan odhan lahaa ich kann mich waschen. Aniga ayaa maydhan kara. Marka accusative reflexive accusative may noqon lahayd ta'kiidin kala la socota marka oo sheegaysa hawsha inaan cid kale iga caawin anigu qabsan karo. Ich kann mich selbst waschen. Marka sidaas ayay noqonaysaa. Ina fahanteen ayaan malaynayaa. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharkeennii maanta oo aynu ku soo qaadanay magacyaalada. Waa aniga oo saxaafadid SMS ah iyo dhammaan asxaabtayda kale halkan ila joogta oo idin la nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanan idinka codsanaynaa inaad subscribe gareysaan videogan iyo videoyada kaleba. Subscribe macnaheedu waxa weeye YouTube ayaa waxa ku soo diri doona notification markasta oo aan soo gelino video cusub. Waxaan YouTube ku idin sheegi doonaa in maanta video cusub la soo geliyay si wada socodkeenu uu u wanaagsanaado. idina wala socotaan wixii ku cusub YouTube-ka. Subscribe marka tiraahdo subscribe waxay ku saamaxi doontaa in YouTube-ka videoyada noocaas meesha ka helayso hadi jeer ay notification ay ku soo diraan si toos ah si aad ula socotid. Marka qof walba please ha subscribe gareeyo
ama ha taabto meesha ku qoran tahay subscribe ama ha click gareeyo. waxaan kaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.